reer baadiya ayaa hadda ka hor waxa uu yimaaday magaalo waxa uuna ka soo qayb galay casuumad aroos sida caadada ah markii cuntadii la keenay ayuu odayaasha sidii cuntada uga boobayay markii dambe waxa uu qaatay baradho kulul waxa uu damcay in uu liqo wayba ku dhagtayba naflacaarigii ayuu la ilmeeyay dadkii ayaa weydiiyay maxaa kaa ilmeysiinaya kulaha waxaan soo xasuustay geeridii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nin ayaa hadda ka hor waxa uu soo galay masaajid waxa uuna damcay in uu tukado salaadii alle kadib markii uu tukaday salaadii ayuu waayay kabihiisii intuu iridda masaajidka istaagay kulaha haddaan kabahayga la isiin waxaan sameynayaa wixii aabbahay hadda ka hor sameeyey yaabkiis showtuugii waxa uu is yidhi intuusan laba mid ninkan sameyn kabihiisa sii midda koowaad waa inuu masaajidka dhan gubaa midda labaad waa inuu dadka dhan laayaa ninkii tuuga ahaa kulaha saaxiibka wahanima kuwaagiba ninkii isagoo faraxsan mahadsanaysaa ninkii tuug ah waxa uu hore u sii raacay ninkii waxa uuna weydiiyey saaxiib haddaad kabahaaga waayi lahayd maxaa samayn lahayd oo hadda ka hor aabbahaa sameeyey kulaha ninkii kaba la'aan ayaan bixi lahaa sidii aabbahay oo kale hadda ka hor nin nacas ah oo diintu ku yar tahay ayaa waxa uu u baahday lacag waxa uuna soo galay masaajid si uu u ducaysto kadib markii uu ducadiisa bilaabay ayaa waxa uu yiraahday ilaahayow lacag isi waxaan ku sameynayaa sidaas iyo sidaas markii uu ducadiisa dhamaystay ayaa waxa uu soo qaatay warqad waxa uuna ku qoray ilaahayow jawaabaan kaa sugaya waxa uuna dhexgeliyay kitaab meesha yaalay waa uuna ka baxay masaajidka badciyaal xaafadeeda oo diblow ahaa ayaa waxa uu ka arkay meel dheer waxa uuna soo qaaday kitaabkii waxa uuna fiiriyay waxa uu kadib waxa uu arkay qoraalkii ahaa ilaahu jawaabaan kaa sugayaa isla markiiba waxa uu soo qaatay qalin wax uuna ku qoray waxba kuuma haynay nooga bax masaajidka odaygii ayaa 2 asbuuc kadib soo laabtay waxa uuna fiiriyay kitaabkii waxa uuna arkay warqadii oo ay ku qoran tahay waxba kuuma haynay nooga bax masaajidka isla markiiba intuu kitaabka dhigay ayuu cararay isagoo sii mariyay iridda masaajidka ayuu kufay kulaha ilaahu masaajidka waa kaaga baxaynaa hanu turtuuri Bye.